bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan ardayda sanadkan u fariisanaysa imtixaanka dowladda, gaar ahaan ardayda fasalka 12aad ee dugsiga sare. magacaygu waa maxamed cabdulaahi xirsi. waxaan ka mid ahaa ardaydii sanadkii hore ee 2021 gashay imtixaanka dowladda, isla markaasina alla subxaanahu watacaala u suurtageliyey ka mid noqoshada 10 arday ee ugu sarreysa imtixaanka, aniga oo markaasi galay kaalinta afraad. isbarashadaas kooban kadib, saaxiibayaal, waqti iyo waayo badan oo aad buugga ee qalinka soo haydeen, subax walbana aad usoo kala hayseen iskuulka, maanta waxaad joogtaan gabagabada iyo gunaanadka marxalad ka mid ah maraaxisha waxbarashada, weliba kuwooda ugu muhiimsan. waxaad joogtaan xilligii aad guran lahaydeen miraha halgankii adkaa iyo hayaankii dheeraa ee aad usoo gasheen inaad heerkan imaataan. aqoon iyo khibrad wixii ah ee aad sanadahaas soo kororsateen waad haysataan, allana ha idinku anfaco. balse waxaad gelaysaan imtixaan kaasi oo ah qiimeyn iyo ogaanshaha heerka ardayga iyo waxa uu ka xasuusan karo wixii lasoo baray. imtixaan waa midka aakhiro ee Allah inoo fududeeyo, hana inaga dhigo kuwa u diyaar garooba. fariintaydan waxaan idinkula wadaagayaa oo ay daaran tahay sida aad uga faa'iideysan lahayd maalmaha kooban ee ka dhiman imtixaanka, uguna diyaar garoobi lahayd waxyaabaha lagaa rabo iyo waxyaabaha kaa reeban. sidoo kale waxaan kugula wadaagayaa falsafado iyo taatikooyin ay tahay inaad adeegsato si aad guul uga gaarto imtixaanka. su-aasha koowaad ee muhiimka ah waxay tahay ee aad isweydiinayso, maxaan sameeyaa si aan guul uga gaaro imtixaanka? number 1 waxaa ah uguna muhiimsan, hagaaji oo xooji xiriirka kaala dhexeeya rabbigaaga. xiriirka kaala dhexeeya rabbigaaga ood hagaajisaa waa marinka lagu helo guul adduun iyo mid aakhira intaba. wax kasta oo maankaaga iyo muruqaaga cusleeya waxaa loo kaashadaa Allah si uu kugu fududeeyo. arrinkaaga isaga u dhiibo, iska yaree macaasida iyo dunuubta, waayo waxay dilaan oo ay yareeyaan fahamka iyo xifdiga qofka. waa kii lahaa imaamkii weynaa ee imaamu Shaafici, shakowtu ilaa wakiicin su'a xifdii wa arshadanii ilaa tarki lmacaasi. imaamu Shaafici waxa uu leeyahay, waxaan u tegay shiiqaygii Wakiic aniga oo ka cabanaya xifdi xumadeyda, wuxuuna igula taliyey inaan ka dheeraado oo ka tago macaasida. ku dadaal daacaadka, salaada ilaali, qur-aanka akhri, waalidkaana adeec, danyarta iyo masaakiintana ka farxi oo gacanta u fidi. waxaa hubaal ah in wax allaale wixii aad ku haminayso oo wanaag ah aad helayso. arrinta labaad ee muhiimka ah ee aad guul uga gaari karto imtixaankaaga waxay tahay akhriska. akhrisku waa furaha aqoonta. sida loo kala akhris badan yahay ayaa loo kala aqoon badan yahay. akhrinta casharadu waxay soo bilaabataa bilowga sana dugsiyeedka. haddiise uu gaabis kugu jiro oo aadan horey usoo dadaalin, weli fursad ayaad haysataa, weliba fursad dahabi ah ee hadda bilow. waxaa jira habab ama saxeelado ay leedahay akhrinta iyo muraajacaynta wanaagsani, waxaana number 1 ka ah uguna horeeya jadwal akhris samayso. samaysashada jadwal akhris oo aad raacdo waxay kaa saacidaysaa inaad beeqaamsato si wacanna uga faa'iidaysato waqtigaaga. xadid waxa aad akhrinayso oo kala nidaamso maadooyinkaaga. tusaale ahaan, maadaba maalin u qoondee oo iska ilaali isku dhexyaaca. arrinta kale ee muhiimka ah waxay tahay goobta aad wax ku akhrinayso waa inay noqotaa goob degan kuna habboon akhriska, si maskaxdaadu macluumaadka iyo waxa ay akhrinayso u fahanto una xifdido. waqtiga ugu fiican ee wax la akhriyaa waa subaxa hore iyo wixii casirka ka dambeeya. waxaa kaloo muhiim ah ka shaqaynta imtixaanadii hore, hadday ahaan lahaayeen kuwii dowladda iyo kuwii iskuulka intaba. arrintani waxay kaa saacidaysaa inaad ogaato qaabka imtixaanka iyo sidoo kale inaad hesho macluumaad ay suurtagal tahay in lagugu keeno imtixaanka. saaxiibadaada aad isku fasalka tihiin iskaashada, waxna isla akhriya. wixii aadan fahansanayn saaxiibka ayaa fahansan, sidaa daraaddeed wadajir wax ku akhriya, iskana ilaaliya in waqtiga uu idinka beerdaroobo. fahamka ayaa ka horeeya xifdiga. fahamku waa aas-aaska muraajacaynta iyo akhrinta wanaagsan. xifdinta shay aadan fahansanayn waxay keenaysaa oo ka dhalanaya inaad dhaqso ku ilowdo shaygaasi. marka xoogga saar fahamka, nasiino qaado. aadamuhu waa daciif, wuuna daalaa. qofku waxa uu u baahan yahay inuu nasto, kalifaada badan ka yaree nafta oo naso si aad firfircooni ugu hesho akhrinta una sii joogtaydo. hurdo kugu filan seexo. hurdadu waxa ay qayb ka tahay nasiinada looga baahan yahay ardayga si uu firfircooni ugu helo akhriska.
sidoo kale waxaa muhiim ah cunto caafimaad leh inaad cunto, biyo badanna aad cabto. Cunto leh nafaqo oo aan ku badnayn sokorta iyo dufanku waxay kaa saacidaysaa in aad akhriskii sii joogtayso, caajiskuna uu kaa yaraado. Iska yaree isticmaalka iyo ku dhex jirka badan ee baraha bulshada. Caqabadda ugu weyn ee maanta haysata ardayda ayna wax la akhri la'yihiin waxa ay tahay ku dhex jirka iyo isticmaalka badan ee baraha bulshada. Haddaba maalmahan kooban iska xakamee moobeelka si mustaqbalkaagu uu u qurxoonaado. Ugu dambeyntii waxaan ku leeyahay niyadda hagaaji, kalsooni muuji, ha welwelin naftaada, hana ka baqin imtixaanka. Imtixaanku waa uu fudud yahay, waa haddii aad dadaasho. Sawiro oo maanka geli adiga oo guulaystay, rabbigaana tala saaro. intaas ayaan jeclaystay inaan kula wadaago. Guul baan ku rajaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.